kulan wanaagsan daawada halkani waa channelka wararka Soomaaliya News ku soo dhawaada tabinteena qodobada idinkugu soo gudbi doona waxa qaybka wasiirka ka tirsan maamulka Galmudug oo iscasilay iyo sababta ka dambaysa ayaan halka idinkula wadaagi doona afayeenka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Ibraahim Macallim oo markii ugu horeysay ka hadlay qaabkii uga badbaaday qaraxii lagu leeyay magaalada Muqdisho taliyaasha ciidamada booliska iyo militariga dalka Djibouti oo xabsi la dhigay kadib afgambi ay la dhamaasanayeen madaxweyne Geelle iyo maamulka Koonfur Galbeed oo shaaciyay musharaxiinta ugu badneed ee lagu dooran doono magaalada Baraawe xildhibaanada golaha shacabka qodobada iyo qodobo kale ayaan ku faahfaahin doonaa wararka Soomaali News ee u diyaar garooba markale kulan wacan oo wanaagsan waa 15 Febraayo 2022 habeenimo talaada sii baxaysa Arbacana soo galayso waxaad ku soo dhawaataan qodobada aad maqasheen iyo kuwa kale oo ayna faahfaahino haddii aynu ku hormarno wasiirka qorsheynta dowlad goboleedka Galmudug Cabdinaasir Geelle ayaa ku dhawaaqay inuu iska casilay xilka wasiirkaas oo kamid ah wasiirada Galmudug wasiirka qorsheynta maamulka Galmudug ayaa sheegay in iscasilaadiisu u gudbiyay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor isla markaana oo dib u ka faahfaahin doona sababta ka dambeysay iscasilaadiisa Cabdinaasir Geelle ayaa noqonaya wasiirka labaad ee iska casila maamulka Galmudug waxaana horey sanadkii tagay isku casila wasiirka amniga Axmed Macalin Fiqi oo haatan aad uga soo horjeeda maamulka Galmudug qoraalku soo dhigay bartiisa Facebook ayaa u qornaa sida tan wasiirka qorsheynta Galmudug ee haatan xilka ka tagay waxaan maanta u gudbiyay madaxweynaha Galmudug warqadda aan isaga casilay xilka wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta dhaqaalaha iyo iskaashiga caalamiga ee Galmudug waxaan gadaal ka faahfaahin doonaa sababta keentay iscasilaadeyda si ay dadku wax badan uga ogaadaan ayuu raaciyay waxaan si guud ugu mahadcelinayaa dhammaan hay'adaha dowladda Galmudug iyo shacabkeeda sidoo kale waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa howlwadeenada wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta dhaqaalaha iskaashiga caalamiga sida hagar la'aanta ee ila shaqeeyeen ay ku daray wasiirka Galmudug ayaa looga inuu ahaa musharax xildhibaan ee dowladda federaalka ee Soomaaliya si gaar ah kursiga haatan muranka badan uu ka taagan yahay ee 147 uu sharaxaya Mahad Salaad Cali Yara Cali oo lagu xanibay Muqdisho isaga iyo musharaxiin kale oo haatan dhuusan mareeb qaarkood ku sugayeen kuwa kalena Muqdisho dhawaan kaga imaan doonaan balse xogaha ayaa tilmaamaya in kursigaasi mar hore beesha iyo sidoo kale madaxweynaha Galmudug bay u xireen Mahad Salaad cabasho iyo dhaliilo xooggan haatan ay ka gudbinayaan musharaxiinta kale ee kula tartami lahayd Mahad Salaad oo 4 sano ee la soo dhaafay deegaanka ku metelay si dhaba looma xaqiijin kara sababta ka dambeysay iscasilaada wasiirka maamulka Galmudug ee qorsheynta Cabdinaasir Geelle balse waxa uu qayb ka ah wasiirada firfircoon ee maamulka Galmudug waxaana maamulka Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor waayihii dambe uu wajahaya cadaadisyo xooggan iyo sidoo kale iyo dhaliilo xooggan oo u soo jeedinayaan mucaaradka kale wasiirka qorsheynta maamulka Galmudug ee maanta xilka ka tagay ayaana la rajaynayaa inuu dhawaan warbaahinta la hadlo isagoo faahfaahin ka bixi doona sababihii ka dambeeyay iscasilaadiisa iyo cid uu shaqada ka dhaqaajin lahayd markaana afayeenka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macallim ayaa markii ugu horeysay ka hadlay faahfaahin ka bixiyay qaraxii lagu beegsaday magaalada Muqdisho 16 Janaayo ee bishaan oo ka dhacay aag u dhow gurigiisa Macallim ayaa wareysi uu siiyay tan iyo markuu dhaawacmay BBC ayaa sheegay markii loo eego xajmiga qaraxaasi uu fuliyo qofka isku soo rakibay iyo masaafada kooban uu u jira ay tahay wax mucjiso ah sidoo uga badbaaday xaaladda caafimaad ee hadda uu ku sugan yahay uu sheegay in marba marka ka dambayso uu soo wanaagsanaanayo isla markaana lagu dabiibayo mid ku yaala isbitaalada magaalada Turkiga ee magaalada Istanbul oo horey halkaasi loo geeyay waxa uu sheegay Macallim waxaan ka jabay lugta midigta iyo gacan firarka waxa uu galay jirka intiisa kale hadda waxaan isku dayaa socod maalinba maalinta ka dambaysa xaaladdeeda way soo fiicnaanaysaa ayuu yiri Macallim wuxuu si faahfaahsan uga warramay qaraxa lala beegsaday iyo xaalka sidoo ahaa subaxaasi markaan gurigeyga ka soo baxay waxaan ahaa qof faraxsan oo shaqadiisa u socda laakiin sekino gudahooda ay xaaladdu isku bedeshay wiilaan adeer u ahaa ayaa gaariga darawalka ah oo igu yiri soo degdeg waxaan u baxaynaa waxaan uu tilmaamay ninka isku qarxinayo oo aad ugu dhawaa awoodda alla kaliyana uu ka badbaadiyay qaraxaasi markaan gaariga saarta laptopka aan watay ayaan waxaan arkay xariga laptopka oo furan aniga oo xireynaya waxaan arkay qof isu soo maqiiqay oo meel aan fogeyn ka soo cararaya waxaan xasuustay in albaabka gaariga qaybtiisa dambe aan ku xiray oo aan jug ku siiyay laakiin xoog iyo xeelad qofka loogama baxsan karin ee awoodda alla ayaa naga badbaadisay ayuu yiri qaraxaasi Macallim ayaa sheegay markuu dhaca qaraxa kadib in niyadiisu u sheegay in qaybo kamid ah jirkiisa ay go'day markuu qaraxa dhaca dhulka ayaan ku dhacay qiiq iyo uuraha iyo afkayga buuxsay markii hore waxaan islahaa ugu yaraan qayb kamid ah jirkaaga ayaa maqan
laakiin markaan dhulka ku dhacay ayaan gacanta ismariyay waana hubsaday inaan caafimaad qabo oo jirkayga uu fiyow yahay marka laga soo tago dhaawaca ee gaaray ayuu yiri macallimow oo horey BBC-da ula soo shaqeeyay ayaa tira dhowr jeer qaraxyo Muqdisho ka dhacay ka badbaaday walow midkii ugu dambeeyay mid asaga lagula eegtay oo lagu qaarajinayay isla markaana mas'uuliyadooda ay sheegteen al-shabaab. Macallimow waxa uu sheegay inuu haatan yahay musharax xildhibaan ee dowladda federaalka ee Soomaaliya golaha shacabka horeba markii hore isugu sharaxay deegaan doorashadiisa Hirshabelle wuxuuna sheegay in Muqdisho uu dhawaan ku soo wajahan yahay afayeenka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaana sheegay in xaaladiisa ay tahay mid wanaagsan isla markaana dhawaan uu soo gaari doono caasimadda dalka maadaama xaaladiisa haatan ay soo wanaagsananayso. Markaana dalka Djibouti wararkan ka helayna dalka Djibouti ayaa sheegay in saraakiisha ugu sareysa ciidamada xabsi guri laga dhigay iyagoona loo diiday inay dhaqdhaqaaqaan ay sameeyaan saraakiishani. Saraakiisha ciidamada booliska dalka Djibouti ayaa General Zakaria Sheikh Ibrahim taliyaha ciidamada militariga Djibouti Colonel Abdullahi Farax oo xabsi guri laga dhigay sida ay cadeynayaan wararka madaxa banaan ee laga helayo dalkaasi. Ciidamada nabad sugidda dalka Djibouti iyo kuwa ilaalada madaxtooyada ayaa la duldhigay saraakiishan oo guryahooda ka degan yihiin dalka Djibouti caasimadda dalkaasi. Madaxtooyada Djibouti ayaa kaga shakisay saraakiishan inay wadaan afgambi military oo ku qabsan rabaan wadanka. Saraakiishan qaarkood ayaana dhawaan ka soo laabtay meelo ka baxsan dalka Djibouti taa oo shaki abuurtay. Tan ayaa ku soo aadaysa iyadoo markii bangiga dhexe ee Djibouti lagala baxay malaayiin dollar taas oo galaafatay wasiirka maaliyadda iyo afayeenka baarlamaanka dalkaasi ay saameysay. Dalka dhaca geeska Afrika ee Djibouti ayaa 22 sano wax ka badan waxa madaxweyne ka ahaa Ismaaciil Cumar Geelle madaxweynihii ugu muddada dheer ee dal Djibouti tan iyo xorriyadii 27 Janaayo 1977. Ciidamadan ayaana xabsi guri ku ah guryaha ay ka degan yihiin magaalada ee dalka Djibouti caasimadda u ah ee Djibouti maadaama Ismaaciil Cumar Geelle madaxweynaha dalkaasi uu kaga shakisan yahay inay ka tuurayaan xilka waayihii dambeba doorashooyinka ka dhacay dalkaasi ku guuleysanayay. Guddiga sida maamulka Koonfur Galbeed ee doorashooyinka ayaa shaaciyay kuraastii ugu badneed ee 13 kursi oo baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ee golaha shacabka oo dhawaan doorashadiisa ay ka dhici doonto magaalada Barawe. Guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Koonfur Galbeed ayaa shaaciyay musharaxiinta u taagan kuraas ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya kuwaas oo deegaan doorashadooda tahay Koonfur Galbeed. Kuraasta guddiga ay shaaciyay waxa ay yihiin 13 kursi kuwa ugu dambeyn lagu qaban doono doorashadooda magaalada Barawe caasimadda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Dhanka kalena deegaan doorashada labaad ee maamulkaasi 13 kursi ayaa waxaa la isku soo sharaxay ilaa 26 musharax kuwaas oo ku su'aadaya iyadoo kuraas walba 2 nin oo kaliya u sharaxan yihiin mid kamid ah uu yahay shakhsiga saxda ee loo dooran karo halka ka kalena uu yahay qof musharax oo malxiis u ah. 7 ayaa kuraastooda la shaaciyay iyadoona in ka badan 26 musharax ay ku tartami doonaan kuwaas oo inta badanba u xiran shakhsiyaad gooni ah oo lagu soo saari doono. Maamulka Koonfur Galbeed ayaana soo gabagabeynaya deegaan doorashada labaad oo ah maamulkii ugu horeeyay ee ka dhabeeya doorashada deegaan doorashada labaad qabto marka laga soo tagay Hirshabelle oo dhankeeda shaacisay maalmaha soo aadan Beledweyne ku qaban doonta deegaan doorashada labaad ee maamulkaasi. Maamulka Koonfur Galbeed waxay wajahayaan dhaliilo xoogan iyo sidoo kale boobkii ugu weynaa oo doorashada ay kula kacay lafta gareen waxaana kamid ah musharaxiinta kuraastan u tartamaya gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed oo kamid ah shakhsiyaadka oo qaar ay u xiran yihiin kuraastaasi ee lagu soo saaraya si uga mid noqdo golaha shacabka ee baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya. 13 kursi ee guddiga doorashooyinka Koonfur Galbeed ay shaaciyeen ayaana lagu qaban doonaa magaalada Barawe maalmaha soo aadan. Inta ayaa ku soo gabagabeynayna tabinta wararka Somali News mid lamid ah qayaar inta ku kulmi doona nabadgelyo.